Sanadkan 2025 ayaa lagu tilmaamay mid ka mid ah sanadihii ugu xumaa ee Kenya Somara marka laga hadlayo ku xadgudubka xuquuqda Adanah sida lagu sheegay warbixinta sanadlaha ah oo ay soo saartay hay'adda marka magaceeda la soo gaabsho loo yaqaano imlu. warbixintan oo la daabacay ama lagu daabacay laguna soo aadiyay maalinta xuquuqda Adanah oo maanta ah ayaa muujisay in Kenya oo hadda lagu daray dalalka cadaadiska lagu hayo ay sanadkan la kulantay tacadiyo baahsan oo ay geysteen hay'adaha amniga kuwaas oo ay ku dhinteen ku dhawaad 100 qof oo si sharci darro ah loo dilay. agaasimaha imlo Grace Kahuria ayaa sheegtay in sanadkan la diiwaangeliyay 97 dil oo aan sharciga waafaqsanayn 18 dhimasho oo ka dhacday xarumaha booliiska 72 kiis oo jirdil ah 49 dhaawac oo la xiriira dibadbaxyo dalka ka dhacay 1500 oo qof oo aan si sharci ahayn loo xiray iyo 5 qof oo la waayay. Kenya experienced a disturbing rise in 1. State repression, oppression of citizens and suppression of voice, excessive use of force, targeted attacks on civil society, on journalists, on activists, on human rights defenders, shrinking civic space, systemic impunity by state institutions. So if you're shot from the back, you're honestly not attacking, you're not a risk to the person who's shooting you at that point. And remember the Public Order Management Act. The de-escalation when you're managing protests, you only use lethal weapons or even non-lethal weapons when you are at risk or somebody else is at risk of death. baaritaanada kale ee la muujiyay ayaa lagu ogaaday in dadka la dilay qaarkood laga toogtay meel dhow qaarna ay qabeen dhaawacyo dhanka dhabarka ah taasi oo muujinaysa xadgudubka sharci darrada oo ay geystaan laamaha booliiska ama laamaha amniga gaar ahaan booliiska. gudoomiyaha maxkamadda sare Martha Koome ayaa ka falcelisay warbixintan iyadoo ku baaqday in hay'adaha dawladda ay ixtiraamaan sharciga. If all Kenyans are to enjoy the freedoms our Constitution guarantees, we must confront these challenges with honesty, courage, and a united resolve and ask, where is the broken pipeline?